ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ما أنت ديسكله waxay noo sii socon doonaa duruustii bisha Ramadaan gaar ahaan qaybtii su'aalaha ee bulshada runtii ka imanayay baraha bulshada iyo dadka masaajidka labadaba su'aasha ugu horeysa ahkaamta cibaadaadka la xiriira fadiilada sheekh qofka soo qoray waxa uu leeyahay haddii salaadii cishaa ay iga tagto oo aan soo gaaro taraawiixdii oo lagu jiro ma ku xidhan karaa salaadii cishe oo marka labadii ragcadood ee taraawiixda laga baxaan ugu masii dhameystiran karaa. su'aasha labaad waxa uu leeyahay waxaan maqlay in marka la sooman yahay haddii duhurka la dhaafo aanay banaanayn qofku inuu maydho ama isqaboojiyo marka haddii aan ku noolahay meel aad u kulul oo aan biyo dusha iskaga shubo kulaylka dartii ma iga jabayaa soonku. waxa uu leeyahay sheekh marka aad sooman tahay waa su'aaliiduna soo noqnoqota ma isticmaali kartaa dawada cadayga sidoo kalena dawadan lagu luqluqdo ee biyaha ah soonka iyadu wax ma yeelaysaa. su'aasha afraad waxa uu leeyahay bangiyada dalka qaar ka mid ah ayaa fadiilada sheekh waxay bixiyeen deyn uu qofku ku xajeeyo kolka deyn ma lagu xaji karaa. su'aasha ugu dambaysa gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh dhul ayaanu leenahay sekada dhulka sidee ayaa loo bixinayaa dhul intee leeg marka aanu leenahay ayaana sekada laga bixinayaa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. su-aasha hore waxa weeye sunno iyo faral ma la isku xidhan karaa markaynu soo gaabino waayo taraawiixduna waa sunne cishaa'igiina waa faral jawaabtu waa haa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa mucaad binu jabal u oggolaaday markuu isaga faralka la tukado inuu salaad sunnaa tukado oo asxaabtii reerkooduna ay ku xidhaan cishaa'igii faralka ahaa. waxaa kale oo uu sunno ka dhigay markuu qofku keli tukado ee uu jamac u yimaado inuu soo celin karo marka intood cishaa'igii ku xidhato taraawiixda hadhowna wixii kaaga dhiman taraawiixda la kaalay. su-aasha labaad waxa weeye maydhashada iyo soomka maydhashada iyo soomka waxba isyeeli maayaan qofku waa maydhan karaa. nebi maxamed wuu maydhan jiray sala allahu calayhi wasalam iyadooy ramadaan tahay oo waaguna baryey sida uu caddaynaya xadiidka saxiixa ah ee caaisha warinayso kaana yaktasil min aljanaabati min ahli ama janaabatan min ahli wuxuu ka maydhanayaa kulankii uu xaaska la sameeyey waagoo baryey taasina dhib ma laha mararka qaarkoodna way dhacday inuu isrurshayn jiray nebigu marka hadduu qofku maydhi farala maydho iyo mid isqaboojina iyo mid sunno ah midna dhib ma leh. dawada cadayga ama colgate ama dhiiqadan lagu cadaydo qofku markuu sooman yahay inuu iska daayaa wanaagsan oo cadayga caadigaa isticmaalo saabuunteeda iyo dhadhankeedan hore uga bixin ilkaha iyo afka hadday se kalifta inaad isticmaasho waa inaad aada uga dhammaysaa afka oo adaa yaqaan saad uga dhammaynaysa ee ka dhamme afka. deynta iyo xajka waxay isdiidi karaan haddii lagu haysto deynta oo maal deyn baa lagu amaahiyey wakhtigeediina wuu taagan yahay qofkiibaa kulaha dhaqaaqi kuma xaji kartid kolkaa. laakiin haddii qofka deynta ku siiyey oo kuu ogol yahay inaad deyn ku xajido waad ku xajiyi karaysaa. waxaa si aynu ogsoonnay deynay inay culays leedahay islaamku kuguma kalifin oo kuma saarin inaad deyn soo qaadato waad ku xajiyi kartaa iyo waxa kala duwan way kugu waajibaysaa xaj kuguma waajibin oo laguma odhanayo lacag ma haysatida deyn doono
القرآن كإلهي وحكوحس قفك حجك اللي قول لي هاي بينه يقفك مستطيعة كري أود لقالهان ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا marka hadii aan dhaqaalahan haynin horta kuguma waajibin xaj laakiin hadad soo amaahato aad ku xajida dib male uu ka ansaxaya xajki dhulka iyo sakada dhulka haduu yaalo ganacsi oo aad ka sii faa'iideyso oo aad ka macaashayso oo lacagtaadii halkaad baan ka dhigi leedahay ama bacamshir gelin lahayd dhul gelisay si aad uu kugu koro oo ka dibna aad u siibiso waad sakeynaysaa 10 sanadood haduu yaalay 10 sanadood ba sakadoodii waad soo xisaabinaysa adigoo ku xisaabinaya dhulku sanad walba qiimuhu maray ila isku qiimo mu ahayn sanad waxa laga yaabaa inuu 1000 aha sanad 2000 sanad 4000 saas uu soconay waad soo wada geynaysaa masaakiintuna inta faa'iidada sugaysa iyaguna way ku sugayeen waa la is sugay shuraaka laha marka qofka shuraakada kula ahi maalku haduu khasaaro uu khasaari haduu faa'iido uu faa'iidi shuraaka ku ahaydena adna waad sugaysiisna uu ku sugaya xisaabtama adiga iyo faqiir ama masaakiinta dadkii ahaa hadii laakiin dhulka uu ugu talagalay qof haduu ugu talagalay inuu dhiso wala wuxuu ka dhisayaa haba ahaada mashruuc ganacsi oo aad u badan oo malaayiin dollar ah ugu talagalay inuu ka dhisee markaas ka malaha wallahu a'lam qaybta labaad ee su'aalaha su-aasha koobaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan ku noolahay dalka dibadiisa lacag ayaan waxaan u soo diraa walaasha iyo caruurteeda oo dad danyar ah ama guud ahaan walaalahay lacagta aan u soo dirayo ma u niyeysan karaa hooyada iyo aabahay oo dhintay in Ilaahay iga gaarsiiyo sadaqa ahaan ma u niyeysan karaa su-aasha labaad waxa uu leeyahay sheekh haddii sawir aan geliyo kadar ama waxaan frame-ka loo yaqaano ma suran karaa gidaarka oo guriga ma dhigan karaa su-aasha saddexaad waxa uu leeyahay sheekh haddii qofku diinta ama Ilaahay ama nabiga caayo kadibna isagoo aan ka toobad keenin inuu xaaskiisii u tago oo ubadu calool galo ilmaha yar oo calool galay maxaa la xisaabinayaa ma ilma zina ayuu noqonayaa mise waa xalaal weeye su-aasha afraad gabadha waxay leedahay sheekh waxaan ahay xaas ninkayguna waxa uu ka shaqeeyaa hodheel sameeya cuntooyin badan oo kala duwan waxaana ka mid ah doofaarka isaguna waa mudarab oo cuntada ayuu qaadaa kolka lacagta uu ka soo helay oo nasiinaya ma noqonaysa lacag xalaala su-aasha qaybtan ugu dambaysa waxa uu leeyahay sheekh saxaafadda qaarkood ayaa iyaga oo ku doonaya daawasho badan inay ku helaan mararka qaarkood doorta ciwaano soo jiidasho leh gaar ahaan hadallada xanafta leh waqtiyada dagaaladu ay jiraan sida xaaladdan aynu ku jirro oo kale marka hadalka uu qofku yiri haddii loo turjumo waxaanu u jeedin qofkaas ciwaanka sameeyay dambi ma ku yeelanaya su'aasha hore waxay sadaqa aad u bixinayso aad macna ka bixinayso qaraabadii oo aad ugu tala gashay dadkii dhintay qaraabadaada ahaa sida waalidkii oo kale ma siin kartaa qaraabada ha waad siin karaysaa hadday sadaqa tahay hadday saka tahayba qaraabada waa la siin karaa sakadana dawatayna hore u soo sheegnay dad kooban oo qaraabada kamid ah inaan la siinaynin sida asalkaaga iyo faracaaga macna dadka ka soo jeedo iyo dadka dhashay iyo orida kuwaas la siinay marka adigoo waalidkaaga sadaqa ka bixinaya waa siin kartaa walaalaha sawirka gidaarka la suraa waa qalad nabiguna Aisha arko sawir gidaarka sudhayo aad buu uga xanaaqay manuu miirsanin oo caladii kama jabin ilaa intay soo qaaday ay jeexjeexday marka taas waxay tilmaamaysaa sawirka in la weyneeyo gidaarada la sulaa sax ma hadal xataa haysanayso meel ku qari oo meel gali qofka diinta caaya ee aan toobad keenin hadduu xaaskiisii u galmoodo xaraam ugu galmooday bay ka dhigantay waa arrin aad u khatar badan dad badan oo aynu la yaabsanahay oo dhaga xidhan ama waa bilaabisin ayaa lagu dhalay ama nooca diinta caaya isdul baxay dabeetana dadkaynu aragna ka soo butaacay lala yaabayo way qofkii waa gaal muu islaamin marka gaal hadduu muslimadii u galmoodo de galmadaasi xaraam bay noqonaysaa waladkii waa laga yaabaa inuu abtirsan karo maadaama uu moodayay shubha ay jirtay waxa loo yaqaan shubhada fi fiqh al-islam oo lama oranayo waladkii waa garac laakiin galmadaasi waa xaraam doofaarka dakhli doofaar maxaa kugu wataba anoo banaan arkaya maxaa buuri saaraya xalaal baad haystaa maxaa xaraan kugu kalifay marka haddii aad hubto oo de odaygaagu ama dabaaq ama waiter uu ka yahay meel doofaarka lagu karinayo dee u naseexee hadduu ku diidana dee xaaraantaa ma cunayo dheh
marka qofka muslimka ilaahay wixii uu ka xaaraantinimay inuu iska daayo wey ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلهي درادي هدو قفك شيء دايو إلهي نوح السيا بدل خير قضاء marka waxaan kula talinaynaa walaalaheena dhibku ka haysta dabada dhax kale dadaan xalaal iyo xaraan kala aqoonin inay aad ugu dadaalaan xalaash waayo xaraantu musiibo weyn bay leedahay dadka hadiya jeer saxaafada ku jira qofku hadii uu been abuuradka u qastiyay waa dambiile dunya aakhiraba dambiil weey ciqaabteedana uu leeyahay haday khalad uga dhacdayna waa inuu saxaa marka horebana waxa haboon waxa la yiraahdaa editinka ama tahriirka in warbaahinta aad loo tahriiriyo oo qoraal iyo muuqaal mid kastaba ha ahaatee cid ay soo marto waxan uu jiro oo dhalinyaro aan lagu sii dayninin la eego oo maxaa dhib ka iman kara maxaa se dhef ku jira oo cid waxan kala shaandhayso hufto tira ka siida ka inaga jooji wala gama maarmaan waayo wixii fitna ka dhalan karta fitnadaasi dambiga weyna faafiyaha leh marka feejignaan badan bay u baahantay wallahu a'lam fadilata sheekh qaybta ugu dambaysa su'aalaha waxa uu leeyahay qofka su'aashan soo qoray sheekh hooyadu hadii ay khatar u gashay ilmaha ay sido ma laga soo ridi karaa hadii matalan la ogaado buu leeyahay ilmahaas inaan noolaanaynin oo xubnaha muhiimka ee jirkiisa qayb kamid ay maqan yihiin ma laga soo ridi karaa buu leeyahay su'aasha labaad gabadh baa soo qortay sheekh waxay leedahay waxaan ku noolahay Yurub waxaan dhigtaa dugsi dabaasha waxaan gelayaa imtixaan dabaasha iyadoo Ramadaan lagu jiro dabaashaasi markaa soonkayga wax ma yeelaysaa su'aasha saddexaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan ku noolahay dalka Iceland inta badanna dalkan habeen ma jiro marka nin wadanka u dhashay ayaa waxaan ka wada hadalnaa inta badan sidii aanu habeen u samaysan lahayn marka wax dambi ma ku jira inaanu habeen baanu samaysan inaan idhaahno annagoo qolka hurdada waxyaabo lagu xidhayo oo habeen u ekeysiinayo waxyaabo noocaas oo kale ka fakarayna su'aasha afraad waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay qof dhalinyaro ah kuna nool wadamada Carabta waxaan qaxoontiban ayaan doonayaa buuri inaan markaa Yurub ugu baxo waxana aan sheegtay qabaa'ilka qaarkood oo magacooda lagu baxo anoo aan ahayn qabiilkaas waxaanan qortay buu leeyahay qoyskaygii kala lumay qaar la laayay bay hoofnoo dhamaaday rafaad badan meesha jiro waxaana waxba kama jiraan buu leeyahay danta aan leeyahay waa inaan meesha tago aan waliba waxbarasho u tago marka aan aqoon raadinaya beenta ma sheegi karaa su'aasha ugu dambaysa saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh gabadh ayaan wada sheekaysanay iyadoo hawsha meel fiican noo maraysa ayaa waxaan ogaaday in ay nin leedahay oo ninkaasina uu Yurub joogo laakiin ay isku dhacsan yihiin markii aan weydiiyayna waxa igu tiri kan waan isdhaafinayaa iska kaysug sida awgeed waxa uu leeyahay warqad ma ka qaadan kara gabadhaasi hadii aniga awgeey warqad u qaadato wax dambiye ma ku leeyahay bismillaah waan iska soo yara koobaya su'aalaha si ay maaragtay haadiya mayada ugu dhawaadaan al-ijhaad lid-daruura ilmihii loo soo rido daruura adagoo jirta daraadeed way banaantay marka dhibka faraha badan ee su'aasha ku jira ilmihii lagu sheegay inaan noolaanayn hooyaduna khatar galayso laakiin arinta miisaabideedu waxay u baahan tahay qofkii caalimka ah aqoonta diinta lahaa iyo dhakhtarkii aaminka ah inay iskaashadaan qof aan diinta garanayn inuu qiimeeyo ama dhakhtar aan aamin ahayn oo gaal ah taasi sax maaha markay qofkii aqoonta tibbiga iyo aqoonta diinta oo amaanadii iyo aqoontii ay wada socoto ee la qiimeeyo xaaladaha qaar waa la soo ridi karaa xaaladaha qaarna maya lama soo ridi karo marka inuu noolaanayo iyo inuu dhimanayo labaduba ay suuragal yihiin marka hooyada aan la hubin inay khatar galayso marka ilmihii nool yahay ee isagoo nool oo caloosha ku jiro xaaladaha lama soo ridayo marka in lagu degdego arrintaa waa arrin aad u dhib badan waa qof bani aadam oo la dilayo marka waa in laga feejignaado la iska ilaaliyo qof dee maydhanaya hal mar baynu ka hadlaynay laakiin qof dabaal ka dhigtay shaqo ama tartan ku galaya soom iyo dabaal noocaas isqaban maayaan soomku waa waajib marka safaadka noocaas ee dabaal baan ku tartamayaa soomkii lagu yoolbaari maayo hawshaada dabaasha ama habeenkii baad qabsanaysaa ama maalintii waad ka daynaysaa marka soomkii dabaasha noocaas oo kale ah mamnuuc weeye waa waajib waxaa lagu samaynayaana uu yahay waxaan daruuri ahayn laakiin dee khatar keeni kara oo baydhashadu waa wax hal mara
laakiin dabaashii muddo dheer buu qofkii biyo ku jirayaa quusaya cabaya dhagaha ka galaya marka ma banaano taas التسويد في الليل qofkii inuu habeenkii madoobaysto oo qalab madow guriga uu ku xidhaa dee wuxuu diidayaa ma jiro laakiin waxaan filayaa inuu walaalkeenan ina weydiinaya ka hadlayo ereyga habeen aan samaysanada ereygaas uu ka hadlayaa habeen baynu samaysanaynaa waxa laga yaabaa inuu tuina weydiinaya taasna dee ilaahay baa wax sameeya waxaad iska tidhaahdaa aan madoobaysano waynu madoobaysanaynaa un iska dhe maxay ku yeelina haddii ishkaalku ereyga noqday dee iska daa oo aan madoobaysana baad iska odhan su-aasha kale ahayd qolo aanan ahayn baan sheegtay oo been baan sheegay oo waxaan doonayaa inaan u dhoofo waddamada gaalada waa laba dembi oo israacsan ama xaaraan isa saara weeye waa been iyo abtirsiimo cid kale iyo khiyaamo waxaasoo dhan baad adduunya doon u maraysa ma bannaana tacliinna kuma bannaana tijaaradna kuma bannaana aagbedelna kuma bannaana daruurada ayuunbaa loo banneeyaa shayga beenta la yidhaha daruurana waa la yaqaana waa qof khatar ku jira marka dalkaagii baad ka tagtay iyo dadkaagii waxbaad doonanaysa waxaad doonaysaa xoolo rag kale haysto iyo dal uu hagaajistay inaad tagto taasaad been u sheegaysa waa gobonimo darro iyo dembi weey waxaa su-aashaa u dambaysa ay odhanaysaa gabadh nin kale qabo ma la sheekaysan karaa ama haddii ay iska furaysaba kuurka ma ugu jiri karaayo ma sugi karaa maxaa odhan lahaydeen ma sug baa odhan lahaydeen haddaase tidhaahdaan sawkuyiina laydinka qaadi maayo ceebaha soo kordhay bay ka mid tahy iyo gobonimo darraday ka mid tahy berigii hore soomaalida dhaqankooda gabadha ama oorida xaas le ninka ka ag dhawaada waa la dili jiray baasun baa lagu furi jiray waxyaabaha ay dagaaladu ka bilaabi jireen bay ka mid ahay waa arrin aada u foolxun gabadhana way ku foolxuntahe waxaa samaynaysa laba nin isu geynaysa ka ag dhawaanaya ag maraya ama odhanaya waan ku sugi doonaa iska soo fasakh ama fasakhaadeedaba maal gelinaya ama qaadiga kala qayb qaadanaya waxaasoo dhan waa dembiilayaan mid la qabo iska daayoo tala furay ayaa qur-aankeenna kariimkii xaaraantinimeeyey inta aanay cadad bixin in lagala hadlaba in guur lagala hadlaba oo xataa arrintaa heshiis guur lagala hadlo ayuu xaaraan ka dhigay intay cadad baxays xataa haba laga dhinto kii ka dhintay dee sooba noqon maayo wuu tegey marka inta asayda sido ayaa la guur yaan lagala hadla waa dembiile qof kala hadla haddii saas oo kale iyadoo cadadbax aan cadadbixin la meheriyana meerkaas ma ansaxayo marka iyadana xaaraan bay ka tahay isagana xaaraan dadkana in laga wacyigeliyo weeye nin iyo gabadh baa isu cadhoonaya way dudaysaa meel kalaa bay maraysaa oo mid kalaa bay la xidhiidhaysaa waa qaladaadka iyo jahliga ayay ka mid tahay iyo dhaqamada xumaaday wallahu aclam ilaahay subxana wa tacaala sheekha miisaanka xasanaadka ha u saaro kulankanka ku xigo berriye insha allah inta aynu isugu iman doonno intaasaynu kusoo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب